magacayga waxaa la yiraahdaa Cali Qayr Maxamed Nuur waxaan ahaa qoraal Soomaaliyeed iyo cilmi baare afka Soomaaliga qorayna buugaag badan oo iskugu jira cilmiga afka ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo linguistics iyo suugaanta Soomaaliyeed dhaqanka Soomaaliyeed inta aanan u guda gelin waxaan jeclaan lahaa inaan faalla kooban ka bixiyo labada eray ee hidde iyo dhaqan horta maxay yihiin macnahoodu marka aan waa laba eray inta badan aanan kala harin oo la israaciyo haddii aan ku hormaro dhaqan waa eray ka soo jeeda bulshadii xoolo dhaqatada ahayd berigii hore Soomaalidii xoolo dhaqatada ahayd waxa caado u ahaan jirtay jacaylka ay xoolahooda u qabaan dartood marka xoolaha ceelka la geeyo in xoolaha loo qubeeyo oo la dhaqo markaas ayaa waxa la yiraahdaa maxaad dhaqataa markaas ayuu yiraahdaa geel ayaan dhaqdaa ama ari ayaan dhaqdaa ama lo ayaan dhaqdaa marka xoolihii sidaas loo dhaqay nadiifka ahaa ayaa waxay ku heleen sidaas magaca la yiraahdo dhaqan oo macnaheedu yahay tii dhaqnayd marka maadaama bulshadii 90% ay u badan tahay xoolo dhaqato marka la leeyahay waxa loola jeedaa tii xoolaha dhaqanaysay ayaa macaamilkii ama dhaqashadii xoolaha ayaa waxay noqotay mid hab nololeedkeen iyo dhan walbaba ka daboosha oo sidii aan u fikiri lahayn meeshii aan degi lahayn yani nolosheen iyo dhan samaysa marka ereyga dhaqan asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa ereygaas la xiriiray dhaqashada ama xoolo dhaqashada ama maxay ahayd magacii loo bixiyay xoolaha ee ahaa tii dhaqnayd ereyga hidde isaguna marka la leeyahay dhaqan aan u soo laabtee waxaa laga hadlayaa hab gaar ah oo maxay ahayd bulshadu ay wax u samayso ama ay dhaxdeeda ay u macaamisho ama ay bulshooyin kale ula macaamisho marka la leeyahay hidde isagana waxaa laga hadlayaa waxa la xiriira dhalanka bulshada la xiriira ayaa laga hadlayaa marka miraha la yiraahdo tusaale ahaan mirtu waxay leedahay ama inintu waxay leedahay meel yar inin hoose ee dhaxda ah oo marka la abuuro ay ka soo dhalato marka meeshaas inintu ay ka soo dhalato ayaa la yiraahdaa hidde oo waa mirta hiddaheedii marka la leeyahay markaad oranayso hiddahayaga ama hiddahayga markaad oranayso yani waxaad sheegaysaa waxa aad ka abuuran tahay ayaad sheegaysaa oo waxa aan ka abuuranahay ama aan ka samaysanahay ayaad leedahay marka dhaqan waa maxay ahayd waa ereygaas asalkiisu meeshii aan ka soo hadalnay ka soo jeedo la si xiriira waxa la yiraahdo hab nololeedka bulshada la xiriira ama qaab nololeedka bulshada la xiriira hiddana waa kaas la xiriira dhalanka bulshada la xiriira